Marreexaan oo diiday in gada laga weeraro Jubbaland Kismaayana laga dumiyo iyo Xasan Munaafiq oo ciidan doonayay inuu ku daldalo gado ciidamadii Kenya galay oo la soo celinayay in gada laga dajiyo iyo Marreexaan nimankii sadadarood ahaa oo wacad ku maray inay gacan saarayaan Xasan Munaafiq inaad Marreexaan oo wax fahantid reer Jubbaland baa tihiin Axmed Madoobe waxa idinkaga maqan meel idinkama jiraan ogaadeen waxaad ka tamanaysaan meel idinkama jiraan dhulkaana ilaahay idinku wada beer bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan dhamaan ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan waa barnaamijkeennii iftiiminta xaqiiqooyinka iyo arrimaha bulshada oo in maanta isku dul taagayno Xasan Munaafiq fashilka iyo ceebtii ka raacday Jubbaland oo uu maanta doonayo inuu kula soo galgasho reerkii la oran jiray Marreexaan eegay halkaana uu doonayo ogaadeen iyo Marreexaan inuu dab iyo fidmo dhex dhigo si dagaalku waji kale u yeesho oo fashilkii ceebtii ku dhacay eegay ay isugu badasho mid uu ku guuleysto waxaan ka codsanayaa dib barnaamijku soo gaarinaa si sheergalay hadii salaadi ku joogtana u soo tukubad hayna gelin hadii kalena nabiga ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ninkii Xasan Munaafiq ahaa wuxuu damcay ciidankii Kenya galay ee waxa weeye Kenya iska dhibay intii saraakiisha ahayd iyo intii ciidanka caadiga ahayd ba dawladda Kenya waxay damcday inay ku soo celiso Muqdisho Xasan Munaafiqna waa diiday wuxuu yiri ciidanka Muqdisho kama soo dejin kartid waa dawladda Kenya ayaa Xasan Munaafiq la xiriiro tirwar ciidankii eegay ka soo cararay Axmed Madoobe iyo Jubbaland ka soo cararay ee soo jabay baan hayaa waxaan rabaa inaan diyaarad ku soo saarno oo ay Muqdisho ka soo degaan ciidanka leeyma keeni kara buu yiri sababta markii la weydiiyay wuxuu yiri ciidanka waxaan doonayaa inaan ka dajiyo gobolka Gedo eegay ciidan kalaan urursanaya deedna ciidanka Gedo laga dajinayaa halka marka Xasan Munaafiq wuxuu ka arkay oo sidii uu horay beentii iyo propagandadii waxa weeye Xamse Maxbuus ugu sheekeeyo yiraahdo nin ogaadeen oo reer Cabdulla ah oo waxa weeye ninkan ilmaadeer Jubbaland ana qabanaya Axmed Madoobe ana soo qabanaya sidii loogu sheekeeyay baa niman baa malaaqaad kaga cunay oo yiri gobolka Gedo ka daji Marreexaan iyo ogaadeen Axmed Madoobe Marreexaan waa ku kacsan yihiin ma arki kara adigu foosto waxa la soo riixay la yiraahdo in Marreexaan iyo ogaadeen dagaal iyo dab la dhex dhigo reerkii Marreexaan ha sida daarood nimankaasi niman aanadooda ilaa ma aha horaan idinku sheegay ninkii baan ku iri irbad caaradeed oo luugooyaa u geysta meel buu ugu qoran yahay eegay marka la yiraahdo Ismaaciiliyada iyo daaroodnimada marka la yiraahdana waa number 1 Soomaalinimo iyo gobonnimo iyo dal jacayl iyo wadaneed markay noqotana waa number 1 eegay nimankii Marreexaan foosto waxa loo soo riixaa in gado ciidanka laga dajiyo halka ciidan lagu abaabulo eegay deedna Kismaayo halka laga weeraro Axmed Madoobe booskan idin ka qaadina Marreexaan oo maanta waxaad ka aarsataan ogaadeen iyo Axmed Madoobe la yiri Marreexaan waa hadlay si toos ah buu u hadlay wuxuuna u sheegay Xasan Munaafiq wax wanaag ah eegay iyo waxa weeye sharaf ah iyo wax dadnimo ah iyo wax kalkaal ah iyo wax ay wadaagi karaan Marreexaan iyo Xasan Munaafiq inaanu jirin inuu yahay jabhad inaan gumeed ah oo cuqdad qaba eegay oo aanay marnaba suuragal ahayn in Axmed Madoobe iyo ogaadeen Marreexaan weeraro hanaga sugin bali marnaba anaga hanaga sugin ciidan hadii aad isku dayday inaad gada ka soo dajisna tii Raas Kamboni ee qarsay noqonaysa ee qarso eegay tii Raas Kamboni baa ee qarsan noqonaysa tan kugu dhacda joornaalada caalamka lagu soo qorayo nin laandheera ah oo xildhibaan hore ahaan jiray oo xildhibaan bood la yiraahdo oo ninkaasi libaax dhalay ah eegay oo runta ugu dhiijiyay Xasan Munaafiq iyo Xamse Maxbuus iyo jabhadda fiilla qabiyaala joogtay cuqdada daarood ka qabta ee xanuunsanaysa sida daarood oday la oran jiro hadlaya waa kan wax xildhibaan bood gobolka Gedo Soomaaliya inteedii kale waa ka go'an yahay hal maalina hantidii qaranku u lahaa oo 22 sano Maxamed Saad u tacbaayay maalin bashay gadanaya guriga hooyooyinka u dambeeyay iyo hal dhul oo ay dawladdu leedahay bundooyinkaas lagu dayactiri karaa si gaar ah u adeegsanaya shakhsiyadiisa oo isticmaalaya gobolkaasna wax culays ah oo ka saaran iyo mas'uuliyadda total ma jiro inaad Marreexaan oo wax fahantid reer Jubbaland baa tihiin Axmed Madoobe waxa idinkaga maqan meel idinkama jiraan ogaadeen waxaad ka tamanaysaan meel idinkama jiraan dhulkaana ilaahay idinku wada beeray waa runtii wax xaq iyo xaqiiq buu ka hadlayaa xadiis buu ka hadlayaa Xasan Munaafiq markii shalay bundooyinka Gedo ay dumayeen
وأي بربرين مالن قولة كما هذا هل مالن ولا حمزة محبوس بان كهذا ولا حسن منافق بان كهذا دتكو قاديين دتكو بابعين إيجي الله لا يوحو كيري ما شفتوا ما أنت نقول هو يوينكو يبسدي مالن والبنا وارنتي سحل بان بوت هانتدي قرنكا يا محمد سياد بري intaasoo sano uu soo tacbayay oo ilaalinayay eegay oo waxa weeye wixii la arkay loo soo maray ayuu maalin walba iibsanaya maalin walba warshada kookada warshada sibirka warshada taraqa waxa weeye suuqa dhuxusha ganacsi mirinaayo meel allaale iyo meel dawlad leedahay oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay oo dhaafay mid garanaysan xasan munaaf waa maya hal maalin kama hadal gadow maanta wuxuu doonayaa mareexaan iyo ogaadeen inuu isku hor keeno oo mareexaan ugu sheekayo idinka dila jiraayo ogaadeen baan waxa weeye booska idinka qaadiya Axmed Madoobe baan booska idinka qaadiya mareexaan waa niman soo jeeda waa niman aqligoodu shaqaynayo niman iska caadifadoodo oo waxa weeye ninay maalin is qabteen eegi ama maalin wax kala gaareen laba nin ilmaadeer oo maalin wax kala gaareen niman cudada iyo xanuunka inta lay qaba eegi oo maanta loo soo fuuli karo deegaankoodii iyo waxa weeye maamulkoodii iyo meeshay mansabka iyo magac ay ku lahaayeen mareexaan ilaa gacantiina ku dumiyo tolkiin maanta gacan saara waxa ku shaqeynaysa mahabadi waadna caqli laadahay miyaad kii shalahayn biidhan mareexaan waxay taagan yihiin farmaajo waa mareexaan farmaajo fiilada ka soo bax mahaan mihi hawiye waaye gurigan gurigeygi waaye ariyaa waa lagu kala guuraa waa la isbaabi'iha siyaad baro dhala waay siyaada adeer u ah ariyaa siyaad baro wuxuu ugu dhigaa ogna ariyaa arxuu yiri arxaytiri arxuu ninkii shalay lahaa miyaa adigu hayn nimankan meelay qalbada la yihiin baad u haysataa meelay waalan yihiin baad u haysataa mareexaan ma inaanay lahayn dad wax garad oo aqoonyahana baad u haysataa eegi mareexaan iyo ogaadeensa xageed u kala wadaa waa niman hal maamul leh waa niman hal oday wada dhalay dhiig iyo dhacaan waa isku DNA waa isku dhimasho waa isku dhaawac eegi sideed ku aqliga ku keentay maanta inaad mareexaan intaad leeftid mareexaan ogaadeen iyo Axmed Madoobe baa booska idinka qaadaya xilka idin dhiibaya mareexaan wuxuu haystaa niman kursi iyo maamul goboleed kursigiisii iyo xil u ordayo u baahi qaba u baroranaya aad aqli laada dhalashada ka weyn waxay taagan yihiin xilkan iyo kursigan asigaysa haduu sharaf leeyahay kan ugu sarreeyana waa soo qabteen magac ugu sarreeyana Soomaali waa yeesheen wadani kii ugu maxalimeed yaa u dambeeyay kala sii sido farmaajo ugu dambeeyay ciidan 18 oo ciidan oo dhisan oo nidaamsan buu ku dhigay maanta meel ku sheeg adiga mareexaan baray adiga maanta le mareexaan oo soo kaco ogaadeen la dagaalamay ciidankii lagu dhiibay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ku soco dadkii xisaabtami lahaa oo imaan lahaa oo waxa in ka maqan ka xisaabtami lahaa baatay xasan sheekh xisaabtan idin kala ma jiro waxna idin ma hayo ha kullu go'ina xasan sheekh hantidii ummadda Soomaaliyeedna waa ku takrifashay abi axmed waxaad gacmaha uga shuminayso wax kale tamaaha Jubbaland ila burburi way dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed baad abi axmed inaad gacmaha ka shumiso oo ugu gasha Jubbaland ila burburi way qiimihii Soomaaliyeed iyo magacii Soomaaliyeedna meeshaas aad geysay kaaba nabad qaadanayno والله ما كنت دارتي بالله ما كنت دارتي انا كان نبض قادني هذا الموضوع قم والله بالله تالله انا كان نبض قادني بيها تد wax walba akhriid warun abi axmed wuxuu hoosta uga galay oo waxa weeye u leefleefay oo badii ummadda Soomaaliyeed uu shalay saxiixay ilaa shalay isaga saxiixay uu maanta si official ah soo gacmaha ka leefleefaya eegi oo caalamka yaabin hatta madaxweynaha Turkiga baa saa u riixaya intuu salaanta u aaday oo ninkii leefleefay buu saa u riixaya qof bilaad damiir ah oo bilaadnimo waxa soo dhanna ujeedkeedu waxay ahayd Axmed Madoobe iyo Jubbaland ila baabi oo aan ka dhigo dooxada Jubba afkiisa laga hayaa xasan munaafiq waxaan cunfiga iyo qabyaalada iyo qurunka eegay madaxweyne dhan oo qabyaalad iyo qurun ummadii madaxweynaha oo la dhex taagan oon han lahayn oon qab lahayn oon waxaan weligii talin oo jabhad ahaan jiray oo gaajo ku soo koray oo faqri ku soo koray eegay oo iimaan kala uu sheekeynaya safiirada caalamka deegaankan dadkii lahaa baan ku dijinaya dadkan kale way ku soo duuleen horeyna waa u oran jiray baladeegi maanta waxaad damacday eegi inaad mareexaan soo marto markaad abi axmed badii ummadda Soomaaliyeed siisay si official adii ay ugu saxiixday adoo isle daarood buu kula jabinaya Axmed Madoobe iyo ogaadeen iyo kablalax buu kula baabiinaya iyo daarood adigoo isle oo Jubbaland buu kula tirtiraya ayaad badii ummadda Soomaaliyeed u saxiixday oo si official u siisay
wixii aad shalay nimanka iyo door lagu haystay ummadoo dhani waxa weeye ka qaylinaysa muqdisho dhan iyo dadkoo dhan baa qaylinayay maanta cid ka hadlaysa miyaad aragteen ma jirto muud baa la wada galay eegay waa jabhad fiil la qabyaala waxaa joogaa waa jabhad inan gumeedda ah cuqdad qaba eegay garasho lahayn caqli lahayn sidaa waxa ka salaa ciidankii qaranka Soomaaliyeed loo soo tababaray ee farmaajo tababaray nacayb ay nimankaasi farmaajo u qabaan oo ay daarood u qabaan habeen imaan la taagnaa jiray ciidanka harim cad farmaajo samaystay ciidanka harim cad farmaajo wuxuu u samaystay in waxa weeye hawiye lagu baabiyo maantana waxay leeyihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed ciidan farmaajo ka shalay lahaydan miya harim cad iyo gorgor waxa loo samaystay in hawiye lagu baabiyo xasan sheekh baa lahaa xasan munaafiq baa lahaa baladeegi kan xunee dhakada kuusanay waxa weeye bahal higlada u eg wasiirka arrimaha dibadda fiqi baa lahaa mahad kawaalna lahaa alghabiyaala lahaa eegi koob iyo sagaashan lagu noqoha iyo markaad awrta iyo geela soo ururinayso muuse suudiye laxow aad u yeerayseen eegi wad banaanka afka abuur ka sii deynayeen waxa la haydan gorgor iyo harim cad waxa samaystay farmaajo baladeegi farmaajo samaystay axmed madoobana lugahaad ka leefleefiseen cagahaad u leefleefiseen baladeegi waxa saraayay axmed madoobe iyo de farmaajo heshiiyaan waxa meesha idiima yaalaan maanta marka waxaad aqligiina istiraadeen ma reexaan oo aad wixii la ogaa madaxweyne Soomaaliyeed oo dhaqan leh oo hantidii qaranka aan cunayn oo ciidan dhisay oo safaarada gadaya oo dalkii dhisayaba aryaamahan ma haygi waay mahan hawiya iskale waa lagu kala guura siyaad baraan ka bursanay aryaa hawla jeeda ardowladnimo raba ardowlad haday timaado ardaaroda cuna lugu hadhiga kula jirta armaha ma haygi waay mahan ku muufeysan jira waay digiraan ku cuna aryaa baad habeenay maalin media la taagnin adoo madaxweyne Soomaaliyeed soo maray saddex madaxweyne intaas ku soo raacdeen iyo intaas ra'iisul wasaare baad waxaad qabsateen show caadi qabsateen show official caalami iyo qabiil talaay hawiyo ah eegi maanta marka waxaad leedahay mareexaan waqaan mareexaan waa qaxa kugu maqan mareexaan waadan mareexaan aqoon baa isha ku yeeshay hadaad garanayso mareexaan qofka uu yahay wallahi billahi talaay baa maanta u taadin gadaan ciidan ka dajinaya ariga gadaan ka dajiha hay asan mareexaanan uhubayha asan axmed madoobe ka horgeeha asan la isku burbura ma haasan qabseen mareexaan ariya mareexaan geesiyaal waayatay ya malay bigsadaan kuwii aad hubka u soo gadatay in Ethiopia mahad kawaanle iyo kii candhada weynaayo galmudug joogi jiray eegi waxa weeye maxaa loo jeedaa heerka buur loo jiray aad uga soo qaateen Ethiopia hubka ilaahay gacanta u galiyay maanu hayn kuwaad maalin walba rabteen inaad baabi'isaan oo gobolka galguduud ka tirtirto miyaan hayn war ninka hooyadii aabihiis ku diray baa xasan munaafiq hooyadii aabaha labadii ku dhalay baa isku dirtay xawaadle eegi iyo abgaal baa madaxa isu galisay maanta Hirshabeelle laba maamul tahay Hiiraan State iyo Hirshabeelle kala tahay nin hooyadii iyo aabihii isku diray waxa la hooyadii ka guuray aayadu ma nagaado baa maanta mareexaan iyo ogaadeen iyo kablal iyo sida waa laba nin oo wada dhashay eegi DNA googduna waa mid waana iska ka difaacaynaa horarka loo waayay iimaan laawaha iyo doqonka ay bilaa caqliga gaasada lahada farmaajo waay mareexaan waay ma waan ka soo saara baad maanta isleedahay gado ciidan ugu diro axmed madoobe ha weeraray axmed madoobe iyo farmaajo waa laba nin ilmaadeera ana hadda ku sheegay dani iyo farmaajo waa laba nin ilmaadeera wallaahi bilaahi talaahi hadaad talaaba hada saa u qaadid baan kuri afka baan kuri raas kambuni afka raas casayr baan kuri ilaa iyo waxa weeye balad xaawo iyo meesha la garbaharay eegi tan iyo dannood iyo meesha la yiraahdo jigjiga waxa wiil joogaa baan kuri ciida ku dhaqaaqaysa ciida in gumeed kale loo waay mareexaan tol jiraati nasab dhaleebaad weligii niman shaxda laga khaldi karo matiin niman wax fahansan baati eegi aad iyo aad baan ku waa yaabana halay wareed ninkan muxuu saas mareexaan niman baa ka qayilay dhowr nin mareexaan meesha joogay xogaagoodii ka hanafsaday iyo odaygi maqluubka ahaa waxa loo jeeday fartaag inuu wax bartay waa nin shaqo tagay oo shaqaysanaya fartaag iska shaqaysan adeer wasiir fartaagu shaqaysan adeer caruurta biilka ciyaalka meesha u tagtay ka guro waxaaga eegi waxa doontana xasan munaafiq u shaqay laakiin garbaharay iyo barad xaawo iyo luuq iyo doolow iyo baar dheere eegi midnaba baan ku ha ka yaabin baan ku askari tuuta siita oo axmed madoobe ku socda inuu ka soo dugo وخير يا بركة دير جنيا برنامج كاسي شرقري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته